الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلكسو دوادا وروح الكائن عالمك ورركان الكائن عالمك وحاو دورون أو ظهر رير يوروب إيو غرينلاند أيا ku heshiiyay inay ka falceliyaan haddii Mareykanku damco inuu qabsado Greenland arrin siyaasadeed oo soo jiidatay taageero difaac iyo wada jir. Iran waxa ka socda dibadbaxyo waxaana dadku ka walaacsan yihiin ficilada military ee Mareykanku gaar ahaan kadib markii ciidamada Mareykanku qabteen madaxweyne Venezuela. sidoo kale Mareykanka iyo xulufadiisu waxay taageereen ballanqaad amni oo cusub oo loo sameeyay Ukraine si loo joojiyo difaaca haddii Ruushku weeraro mar kale. Shiinaha wuxuu mamnuucay dhoofinta qalab laba ujeedo ah oo loo diri lahaa Japan taasoo keentay xiisad dhaqaale oo dheeri ah. sidoo kale Kuuriyada Koonfureed waxay dalbatay in la joojiyo barnaamijka nukliyeerka waqooyiga iyo sidoo kale Shiinaha loo raadinayo kaalmo dhexdhexaadin ah. dhanka kale wali waxaan ku jirnaa arrimihii Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay joojiyeen guud ahaan mucaawanadii iyo kaalmooyinkii ay u dirayeen Soomaaliya. sidoo kale Mareykanka ayaa cadaadis ku haya Venezuela inay eriyaan wakiilo looga shakisan yahay inay u shaqeeyaan Shiinaha, Ruushka, Iran iyo Cuba. dhanka kale wararka ka imanaya gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in halkaa lagu dilay gabadh cadaan oo ay dileen ciidamada loo yaqaan ICE ee dadka bilaa sharciga xidhxidha walaal daawada waa kuwane. You! Shame! 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 Dude, what's happening to her? What happened? Dude, you shot her! I'm trying to help! No! No! You fucking shot someone in the fucking face! You shot someone in the fucking face! Do you have a conscience? Do you have a conscience? Don't let the murderer leave! Don't let the murderer leave! dhanka kale hay'adda UN ayaa shaacisay in la xaqiijiyay in safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay uu qayb ka yahay xatooyada loo geystay dhaqaalaha dowladda Mareykanka ku bixiso adeegyada daryeelka caafimaadka ee UN-ta. waa hay'ad kormeerta dhaqdhaqaaqyada qaramada midoobay iyo waxqabadkeeda fadhigeeduna waxa uu yahay Geneva. dhanka kale waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimada direed ee ku nool waqooyiga Yurub ayaa maanta aad u taageeray aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil cambaarayayna culimada Soomaaliya ee u cuskanaya aqoonsiga Somaliland arrimaha siyaasadda
وأخونا إلى يرداوضة islaamku waa caam ilaahay shareecada Soomaaliya kaliya uma soo dejin ama Soomaaliya Somaliland ama shanti Soomaaliya kaliya shareecadu kama hadasho aayadaha quraanku waxay ka hadlayaan wax guud bay ka hadlayaan مثلا marka ilaahay leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu ilaahay xarigiisa qabsada oo ha kala tagina dadka lala hadlayaa Soomaali kali ama ahan Afrikaan kali ama ahan shuruubta Turki baa ku jirta kuwa Imaaraad baa ku jira kuwa Saudi baa ku jira kuwa Djibouti baa ku jira haddii marka wadaado siyaasadda isku khilaafsani ay yiraahdaan aayadahani waxay ka hadlaysaa inaan qoladaasi go'i karin ama aan i'tiraaf la siin karinin de waa aayad quraan oo la siyaasadeeyay ee meesheedii ma aha waxaan war idin haynaa caawa daawadayaal waa naga intaa tan iyo intaan dib u kulmayno youtube-keena channel-keenan bad iyo bari channel like share comment salaamu calaykum bye